laziness iyo wax qabad la'aanta iyo sigaarka bulshada keebaa dadka leyntiisa ku badan bay dhahay sigaarka waxa la wada yaqaanaa inuu sun yahay oo boysiyo dadka laayo cagsiga iyo iska fadhiga ka batay iyagu daraasaday sameeyeen ولا تعجز بنبي عليه عليه الصلاة والسلام تعجز هي تعجز لبضب والله ورنكر أبو هذا إمام النووي لكن كسر عانة ولا تعجز هعجز كوا معي قفك بن آدم قال الله وحبا كل عبيد هذا الكسل والعجز بين هذا كسلك وقفك وهسي عدم الإرادة وقفكو أن دونيس بالهين إنه وحقب طبر ربين عجسقونا وقفكو يربا إنه وحي قبطه لكن هدنا قابن كارلا وطاقلا عدم القدرة شقق كستو الله قبطه وحيد هذا لبدا شيء بو عمل كوكوبني إن أد واحد دونيسيد يين دوديد مركاسو عمل كوكو قبصومية إن أد دونيسيد إن أد قبطه يين دوده نبي عليه الصلاة والسلام markaa wuxuu tilmaamayaa inaynan cajsinin dadka badh iyo wax kasta ay qabtaan taswiif ku sameeyo insha Allah baraan sameyn doona maanta aad qaban karaysaa maxaa bari amal kale u dhigo ma ay baraan sameyn doona wax kasta bari u dhigaya ama ma he barnaamijyo iyo barnaamij buu degaya markaasuu leeyahay insha Allah saasa yeelaya sanadka dambe quraankan xifdinaya sanadka dambe waxaan rabaa jaamacadda ee balas inaan kaga baxo insha Allah waxaan rabaa waqtiga soo socda tijaaradaasi inaan galo waxaan rabaa kutubta inaan dhigto waxaan rabaa cibaadada inaan sameeyo laakiin afku kaleeyay waa barnaamij afka ah amal ma gaadhayo isuma bedelayo maxay wax amal isuma bedelayo in wax la bilaan gareeyaa ma xuma لكن واحد بلانجرين يسوينه يا واحد أود قبان كرسي مركب كواد شيء في مقدورك وينه يجي وأنا أتقف رياضة يا نقول تتكبر با day dreaming هذا سوتش هذا ينتريو معها وحانت سمين كرين هذا تكود والضوء ريق هلون تتكي هردار رياضة تتك سوتش هذا نقارب الرياضة ومرة وحانت قبان كرين أتكف كرسو واترياضة يسا waxaad balaangareysay waxaad qaban karto waa inuu noqdaa marka labaadna waa inaad fulisaa fulintu dadka badhba fulanima haysaa arma dadku kula yaabaa arma si xul ugu eega arma shaki unbaa iskaga soo ururaya dadka badh oo wixii uu qaban lahaa u diidaya arma lagu yidhaahdaa waxaan wuu istusaya waxaan kan buu samaynaya laakiin نبي وحينا ليه احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز مرنا بها عاجز ولا نبي عليه الصلاة والسلام سحابي وشقين شري أنس بن مالكها أيوح ليه هي أنو نبي وشقين أيوح بان مغلاه يسقو كعل علينا يوله اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال سوى كوع العلني يولا إله هو حنكا مغنقلي ورورك يو البهارك يتيران يدي يمروقده همي قوا وحصاص عدا وقفك كورورو مستقبلك ولا مدوباده أو دبتنا قفك ورورو حزن قنا ووحي كتاقي قفك وتيران يمروقك الريبة إذن ولا بورور أما اللي بول بهار لكن وحي كسليسان يهين midna waa wixii tagay midna waa waxa soo socda nabigu kaleeyhi salaatu wasalaam labadaba ilaahay buu ka magan galay wuxuu kaloo ilaahay ka magan galay al-ajz wal kasal walabadan xanuunaynu hadda sheegaynay qofku inuu cadam al-qudra inuu xawoodi waayo ama in doonistuba ka dhibato doonistuba inay ka dhibato oo dadka badba wahsiga iyo hurdada mooda inay nimco tahay waa raaxaysanaya buleeda tan uu jiifaya sabaqtiga waxba nolosha hurda kuma soo kordhiso
qofku waa inuu hurdada seexdaa intuu uga baahnaa intuu caafimaadkiisa ku ilaalinayay intuu nashaadada jidhkiisa uu dib ugu soo noqonaysay sida awgeed buu nabigu wuxuu ilaahay ka magan galay wahsiga iyo waxtaryarida wuxuu kaloo ilaahay ka magan galay bukhliga iyo jubniga waa baqaha waa qofku markuu wahsado dee wixii uu ka baqaya dabeetana si aad u sugaysa walaad baraad qaban inaad u leedahay ayay iswada fuulaysaa hadhowna waxay gaaraysaa shaqadii waxaanad qaban karinba bukhliguna waa wixii oo anfacaagii oo aan dadka gaadhaynin wadalaci dayni waghalabati rijaal waxa uu nabigu sheegayna waxa ka ratibma daynta oo kaa xoog badata iyo bini aadamka oo kaa xoog bata xadiidkani waxa uu tilmaamayaa markaynu soo duuduubno qofka muslimka inuu qof active ah qof nashiita qof firfircoon qof raba inuu wax qabto qof camal adduunyo mid aakhiro midun ku foogan qof aan noloshiisu khasaare noqonin ama waqtigiisu khasaare ahayn ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam tilmaamaya walidaalika nabigu wuxuu tilmaamayaa waqtiyada qaarkood ayacjizu axadukum buu nabigu yidhi waar midkiin miyuu kari waayayaa an yaksiba kulla yawmin 1000 xasana maalin kasta inaad 1000 xasano shaqaysato miyaad awoodi kari waayeysa nin raggii meesha fadhiyey baa wuxuu yidhi kayfa yaksib axaduna 1000 xasana oo midkaa yeesuu 1000 xasano u shaqaysan karaa 1000 ajara u heli karaa qaala yusabixu 100 tasbiixa fayuktab lahu 1000 xasana dee 100 goor baad subxaan allah odhanaysaa iyo waxa lagu qoraya subxaan allah intay kaa qaadanaysa 100 gooroo subxaan allah waa less than 1 minute ka waran hal daqiiqo oo noloshaada ka mid ah haddaad 1000 xasano shaqaysan karto saacaddii misaad shaqaysan karaysa waxaa meesha taalla markaa nabigu wuxuu leeyahay qofkaasi subxaan allahi yidhaahda ee tasbiixda la yimaada 1000 xasanana waa loo qoraa aw yuxadu canhu 1000 khati'a ama 1000 dambaa laga dhigaa cajsigu dad buu gaadhay inay xataa awoodi kari waayeen inay ilaahay baryaan ilaahay baryadiisa xataa inay ka gaabsadaan si awgeed buu nabigu wuxuu leeyahay acjasu nnaasi man cajasa can idducaa acjasu nnaas man cajisa can idducaa dadka waxaa u caajisnimo badan dee ninka awoodi kari waaye ilaahay inuu baryo wa abkhalu nnaasi man bakhila bisalaam dadka waxaa kaloo u bakhaylsan buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam qofka dadka kala bakhayla inuu ku yidhaahdo assalaamu calaykum assalaamu calaykum waa duco inaad dadka u ducaysad kala bakhaylaysa ayuha alaxiba waxay leenahay cajsigu marar badan buu noqdaa jahliga marar badan buu sababta cajsiga keenta ay tahay aqoon darrada waayo subxaan allahi haddaanad ajarkeeda garanaynin waa aqoon darra ku haysata aqoon darradu waxay keentaa qofku inuu waxba qaban waayo hadaad aragto qof aydhal ah jahlnima haysata walow uu xoog badan yahay walow uu dakaagiisu intelligencekiisu uu sarreeyo walow uu caqli badan yahay mar haddaanad muntij ahayna wax soo saaraynin waxay yidhaahdaan nolosha waxaa qiimaha ku sameeya ma aha inaad caqli badantay ee waxa weeyaan bay yidhaahdaan inaad hardware kar tahay nolosha taasaa raad ku leh qof xoog wax u qabta inaad tahay garaadka badane hadduu hurdo dhalo waxba tari maayo si kastoo aad daki u tahay haddaad qof laysiyatay qof aan firfircoonayn haddaad tahay garaad bandidnu waxba kuu kordhin mayso si awgeed buu nebigu wuxuu tilmaamayaa amaba si aan aayadda qur-aana tilmaamo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu qur-aan ku tilmaamay qof dhan oo bini aadam ah oo intuu dembiilo noqday arday u noqday tuke qiyaas inaad tuke arday u noqotid tamardarradu halkay gaadhay saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyahy fabacatha allaahu ghuraaban yabxathu fi lardi liyuriyahu kayfa yuwaari saw'ata akhiih qaala yaa waylataa acajaztu an akuuna midla hada alguraab فواري سوءة أخي
faasbaxa min annaadimiin. in aadamkii walaalkii dilay markuu dembiga geystay walow uu xoog weynaayo xooggaa walaalkii ku dilay uu qabay, kadib aqoon darrada haysatay waxay noqotay si uu u galo maydkii walaalkii buu garan waayey. ilaahay baa wuxuu u soo diray tuka markaa aqoonta ah in wax la xabaalo baray. tuka kaloo dhintay god u qoday oo aasay, wuxuu baray markaa in wax la xabaalo. wuu halaanhalay ama wuu calaacalayo wuxuu leeyahy yaa waylataa acjaztu an akuuna midla hada alqur'aan. halaagaygiiyow kaalaye ma waxaan ka liitaa, ma waxaan ka waxtar xumaaday inaan tukahaasoo kala noqdo. idan jahligu tukuu macallinkaaga dhigi. dad badan oo maanta soomaaliyeed oo iska fadhiya waxay la fadhiyaan waxay qabtaanba way garan waayeen. jahligaa fadhiisiiyey. beer si loo qoto ma garanayo, wax kale si loo sameeyo ma garanayo, aqoon si loo barto ma garanayo. jahli baa fadhiisiiyey. jahligu markaa dadka wuu dulleeyaa. idan aqoontu iyo cilmigu waa min alquwa. quwada la sheegaya aqoontaa ka mid ah. si awgeed ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam inagala dardaarmayaa istacin billaahi walaa tacjiz. ilaahay kaalmayso oo isticaanadaada ilaahay kaalmayso hana caajisin. qur-aankana ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa in badan baa ilahay wuxuu qur-aanka kaga warramaya reer banu israa'iil oo la leeyahay khuduu maa aataynaakum biquwa. war waxaan diinkaanu idiin soo dejinnay war si ijtihaad iyo firfircooni iyo xoog uu ku jiro. khuduu maa aataynaakum biquwa baa ilaahay leeyahy. nebi muuse maxaa ilaahay leeyahy wakatabnaa lahu fi lalwaaxi min kulli shayin mawcidatan watafsiilan likulli shay fakhudhaa biquwa wa'mur qawmaka ya'khuduu biaxsaniha. ilaahay nebi muuse ku leeyahy fakhudhaa biquwa, si dadaal iyo tamari ku jirto ku qaado. khuduu maa aataynaakum biquwatin wasmacuu qaaluu samicnaa wacasaynaa. markii ilaahay uu nebi yaxye la hadlayay waxaa la yidhi yaa yaxyaa khudi lkitaaba biquwa. war nebi yaxyow kitaabka si xooggan u qaada baa la yidhi. si jiddiya, si ijtihaadu ku jiro, si dadaal iyo firfircooniyo ku jirto ilaahay kitaabkiisa u qaada baa la yidhi. waxaa qur-aanka ilaahay uu ku sifaynayaa dadka wahsiga iyo cajsigu hayaa inay sifada munaafiqiinta tahay. wahsigu ilahay wuxuu leeyahy ina almunaafiqiina yukhaadicuuna allaha wahuwa khaadicuhum waidaa qaamuu ila asalaati qaamuu kusaala. munaafiqiinta ilaahay wuxuu ku tilmaamay salaadda hadday u kacaan waa kuwa kaca iyagoo kusaala ah, iyagoo wahsi iyo caajis u hayo. walaa yaatuuna asalaata ilaa wahum kusaala. salaadda lama yimaadaan baa ilaahay yidhi iyagoo xaaladda ku sugan mooyaane. ayuha alaxiba, markaad wahsato acmaashu way isfuulfuushaa. wixii maanta kugu habboonaa inaad qabato markaad qaban weydo wayse sii kortaa. sidaa awgeed baa ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa yaa ayuha aladiina aamanuu maa lakum idaa qiila lakum infiruu fii sabiili illaahi ahaaqaltum ila alard. war dadka mu'miniintahu maxaa idinku dhacay oo haddii laydin idhahda ilaahay tiisa u soo baxa, jihaadka u soo kaca, ahaaqaltum ila alardi baa layidhi. maxaa dhulka idinku cusleeyey ayaa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala. maxaad dhulka isugu nabaysaane u kici kari weydeen. aradiitum bilxayaati addunya min alaakhira, ma adduunka aakhira ka jeclaateen baa ilaahay leeyahy. famaa mataacu alxayaati addunya fi alaakhirati ilaa qaliil ilaa tanfiruu yucadibkum cadaaban aliima wayastabdil qowman gayrakum walaa taduruuhu shay'a. ayuha alaxiba, kuwa munaafiqiinta ee jihaadka ka wahsadaa ilaahay wuxuu ku tilmaamay inay sifaadka munaafiqiinta ka mid tahay taasi. yaa ayuha aladiina aamanuu khuduu xidrakum fainfiruu hubaatin aw infiruu jamiica waina minkum laman layubai'anna waxaa idinka mida baa ilaahay leeyay mid dadkaba cagsi gelinaya o fadhiisinaya oo dib u reebaya. waxay yidhahdeen daraasaadka cilmiga ee dambe xataa caafimaadka qoladan maanta ka shaqaysa waxay tilmaamayeen daraasay tilmaameen cilmiga Hong Kong ay ku sameeyeen oo dadka Hong Kong baadheen. markaas waxay yidhaahdeen laziness-ka iyo
waxqabad la'aanta iyo sigaarka bulshada keebaa dadka leyntiisa ku badan bay dhahay sigaarka waxa la wada yaqaanaa inuu sun yahay boysiyo dadka lahayn cagsiga iyo iska fadhiga ka batay iyagu daraasaday sameeyeen qolana 6800 meelahaas ay noqoto qolana 5700 maanta waa kuwan yiraahda xanuunada ugu tirada badan ee bini'aadamka ku dhaca waxa keena bay yiraahdaan maxay exercise laan exercise la sheegay inaad boodboodo quran ma waa inaad wax qabato laakiin haddaad iska yuururto una fadhidid qof fadhiya habeen iyo maalinba caafimaadkiisa ba khatar ku jira ka kale nolosha inaad wax tar ku yeelato iyo wax soo saar inaad yeelato ee waxa khatarta galaya waxa weeyaan maxay adiga caafimaadkaaga ba khatar galaya ولذلك بقى طبعا ما أنت واحد تلمامة يعني قفكو إنه نشاط سكيليو ما معان بعد غبطة ما سكر بعد غبطة ما كم بعد غبطة ما أنت صعو أنت قبو أنت يعني هو قبو فردقو مركا عقلي أنا وما فينا إسك فردقا وحبال لقو قوانيني شركنا وما فينا آخرنا وما فينا أدونا وما فينا ليزي نسو مركا نولشا ميل لبو حكا قمالي وحا ماشا تالا قفك مؤمن كي إنه منتج نغضه qof wax soo saar leh inuu noqdo waliga hamoodina waqtigu ku dhaafay dadka barba isle faataka alqatar ka sheegi jireen yaani waqtigiiba tagay intaan meesha fadhiyay inta ku hadhay cimriga baa wax soo saar yeelan karta xalayaha dadka baraysa oo maanta kuntan jirbaad ama waxbaad baran karaysa dad ba kuntan jirreynta ku bilaabeen culimadii waaweynay dunida noqday ما garanaysid cimrigaagu intuu ku gabagaboobi doono ma garanaysid inta ilaahay adiga chance ku siiyay adiga waxa ku xilka ku saaranay wuxuu yahay inaad rumaysato cimrigu wali mutasac baa jira nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam isagoo taa inagu dhiirinaya wuxuu tilmaamaya in qaamat as-saa'a wa fi yadi ahadikum fasila fa in istata'a an la taqum hatta yaghrisaha falyaghrisaha nabigu wuxuu leeyahay hadduu qiyaamuhu xaggaa ka soo bilaabo soo kaco oo aad gacanta ku hayso fasiilada waxa la yiraahdaa geetimireedka yar la abqaalayo geetimireed yar aad gacanta ku hayso haddaad ka gaarsiin karto inaad abqaasho buu nabigu leeyahay abqaal beer haddaad ka gaarsiin karto beer oo inaga iyadaan qiyaamaba inaan arkaynin baynu fadhinaa oo leenahay waan gaboobay Soomaalidu 40 jirkay ku gabowda Soomaa في Soomaaliga markuu bini'aadamku uu xoog badnaa markuu gaaro ayuu yiraahdaa waan gaboobo xolabo iga dhamaadeen bini'aadamku aqligu ka gabooba haddaad maanka ka gabowdo ayuu maad gabowday inta kale waxbaad qaban kartaa sawgeed buu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamayaa qabla al-mawt in furas jiro inta geerida ka horeysa inaad fursad haysato fursad wax lagu qabto inaad haysato waxaad yareysanaysaa wax weyn noqda waxaad yareysanaysaa maxaan uga jeedaa sadar quraan inaad qaybtaa waa wax kula yar Soomaa waxaad saladay oo haddaan maalin kasta sadar qayb goorma quraanka dhamayn tan sadar qayb goorma quraanka dhamayn waxay dhahan dhowr iyo 10 sanadood ku dhamaynaysaa haddaad maalin kasta sadar qaybto hadda waa sadar hal sadar waxay dhahdaan wax qabadku taraakumka beeritaanku qiimaha ku sameeya markanaad qabanayso wax yaraantiisa ayay ku muuqanay haddaad maalintii hal safxa qorto hal page haddaad maalintii qorto sanadkii imisaad soo saaraysaa ugu yaraan 2 buug baad qori kartaa sanad kasta waayo sanadku waa 365 maalmood dad maalin kasta page qorto macnaheedu waxa weeyaan ugu yaraan buug 300 page ka badan ayaad qori kartaa laakiin haddaad tiraahdo ma xaashi aan qorayba buug noqon doonta maxaan xaashi ka qori doona aqoontu iyo wax qabadku iyo waxtarku taraakumka inay biirtaabay wax ku noqotaa wax kasta oo biira aakhirka wuxuu tagaa maxay wax qiimo leh buu noqdaa taas waxay keensanaysaa inaad waqtiga waxba yaraysanin wadaada wuxuu tilmaamayay jaamacad buu master degree ku qaatay isagoo shaqo kale markaa wada inta uu
gaariga soo socda uu gurigiisa ku sii socda buu dhageysan jiray una cajiladii jaamacadda warkeeda inta loo duubo ayuu wuxuu dhageystaa inta maxay uu gaariga sii wado hadda inta gaariga gurigaaga jaamacadda inta tagtay gurigaaga ku sii socota inta aad dhageysato ayaad ku qalin jabin kartaa laakiin waa hadday taraakumto de waa haddaad maalin walba sida tan u dhageysanayso marka waxaan uga dan leenahay camalku iyo waxqabadku iyo waxbarashadu iyo wardigu iyo wax waliba in la biiriyaabay wax ku noqdaa in la joogteeyaabay wax ku noqdaa camalka inaad joogtayso ayuu wax ku noqonaya ilaahina wuxuu ina leeyahay walaa tahinu walaa taxzanuu waantum laclawna in kuntum mu'miniin war dadka mu'miniintow wahniyuu idinku dhicin haniyad jabina hana murugoonina idinkaa koreeya baa ilaahay tilmaamaya haddaa kuwa mu'miniina tihiin haddaad dariiqa iimaanka raacdaan waa koraynaysaan xataa markan awooddaadu intaad qaban kartaa ha yaraata laakiin intaa qabo sawgeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu leeyahay waka'ayyin min nabiyyin qaatala macahu ribbiyuuna kathiir famaa wahanuu limaa asaabahum fii sabiili illaah wamaa dacufuu wama stakaanuu wallahu yuxibu asaabiriin badanaa inta nebi qaatala macahu ribbiyuun maciisa ay la dagaal galeen kuwo rabbi loo nisbeeyey dad ilaahay isu dhiibay oo may daciifin wixii dhib soo gaadhay may isdhiibin may isdhuldhigin ee waxay noqdeen dad walow markaa ha lagaba xoog batee wada camalkii ilaahay intay natiijada ka gaadhayaan ayuha alaxiba marka xadiiska kan wuxuu nebigu ku gebagabaynayaa calayhi salaatu wasalaam weer tilmaamaysa ereyga low ah wixii kaa tegey tiiraanyadooda inaanad isku mashquulin oo wuxuu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam ha odhanin bal ma haddaan sidaa iyo sidaa yeeli lahaa waxaasaa soo bixi lahaa saasaa noqon lahay fa ina low taftaxu waxay furtaa low waa camal shaydaan albaabka shaydaankay furtaa oo maxaa jira alqadaa walqadar mar hadduu ku dhaafo lama calaacalo qaar baa waxay yidhaahdeen low kaanuu cindanaa maa maatuu wamaa qutiluu hadday nala joogi lahayn waa kuwo munaafiqiina waxay leeyihin muslimiintaa soo dhimanaysa hadday iska joogi lahayn oo nala fadhiyi lahaayeen maa maatuu wamaa qutiluu manay dhinteen labana dileen ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u tilmaamayaa qul low kuntum fii buyuutikum labaraza aladiina kutiba calayhim alqatlu ilaa madaajicihim waar xataa guryihiinna haddaa ku jirtaan intii wakhtigu ka dhammaatay geeridu way u iman lahayd baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala saa awgeed low waxay culammada qaar yidhaahdaan mawducu tacliimkuunbay ku fiicantahy ayaa la isticmaali karaa oo maalan jaamacad baad ka soo qalijabisay wixii aad barataa marketka aan shaqo ku lahayn qof yar baa ku yidhi ila tale markaasaa waxaad ku tidhi maanta haddaan jaaniskaa haysan lahaa low kaan haddaan jaaniskaa haysan lahaa kan maan galayna kaasaan geli lahaa waa litacliim qofkan baad rabtaa inaad tidhahda war natiijada anaa waddadan soo marayo ma fiicne waxaad isku daydaa maxay kan kale inaad saas daraaddeed buu nebigu lahaa low istaqbaltu min amri ma stadbartu markii ay ugu tilmaamayey dadkii soo xidhay cimrada ama xajka soo xidhay ee xalaaloobi kari waay ee hadyiga waday haddaad hadyidu waddo ma xalaaloobaysid haddaan arrinkayga hadda wixii soo dhaafay hadduu hadda ii bilaabmi lahaa buu nebigu leeyahy hadyigana maan soo kaxeeyeen dadkana waan la xalaaloobi lahaa buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam culammada waxay yidhahdaan markaa min baabi tacliim iyo meelaha hadday tahay waa bannaan tahay laakiin baabu calaacalka hadday tahay bay leeyihin ma bannaana oo waa maxay qul maa shaaa allaahu kaan waa inaad rumaysataa wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaaa allah ina allaha kaana caliiman xakiima wixii tegey waxba kama bedeli kartid maadaama aanad waxba ka bedeli karaynin ilaahay wuxuu tilmaamayaa wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaaa allah ilaahay wuxuu doono mooyaane wax kaloo idinku dooni kartaan ma jirto ina allaha kaana caliiman xakiima bale waxaad ka calaacalaysa waxaaba laga yaabay khayrku saa ku jiray wacasaa an takrahuu shay-an wa huwa khayrun lakum